waxaa jirta magaalooyin gobollo caasimada ku dhow ay daris yihiin waliba sida Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose waxaa ka jira dagaalo goosgoosa oo beelaha halka dega ay dhibaato fara badan dhex taalo qeyladhaantooduna miidiyada iyo meel kastana ay taalo maxay dawladdu ugu sameyn weyday kuwaas dib u heshiisiin intay u gudbayso gobollo kale waxa aan ku sheegay charity begins at home jaceelku wuxuu ka bilowdaa guriga waxa dawladdan ay waxaas u sameynayaan wax kala maaha dawladdii baa dadka ku dhakanayo dawladdii dadka iskale dawlad maaha waxaan waa maafiye waa habargidir iyo wax la socdo xasan waxa ku shaqeysta habargidir iyo xogaa yaro wadla iyo xogaa yaro shaqaala marka dhulkan waa dhul balaaris waxay rabaan dad ay dhacaan ayfamta marka afgooye shabeellada aad sheegayso dagaalka ka socda wax kala maaha wali ma gumaysanayst haddaan biyo maal ahay war tagaaniga ay gumaysan waay eeyo eegu dhalay ma fahamta ima gumaysan kartid biyo maal waa dagaalamaya waa dagaalamay habargidirna jawaabteeda uu siiyey nin kasta oo Soomaaliya maanta waa biyo maal nin dhulkiisa loogu tali kara ma jiro marka sababta oo aga aamusan yahay xasan oo afkiisa oo dhigi karin waxa waay habargidir baa ku tiri hadaa kaadaas oo ku tooganayna ninkan habargidir baa haysato waa nin la haysto waa tahay habargidir madaxweynaha ma hanjabi kartaa warba waalanta maxaa cadeynaya markaas professor ya maxaa cadeynaya waxa cadeynayo runta oo sheegi karin markuu dhintay ninkii la yiraahdo muxuu magaciisa ninkan muxuu ahaa ciidid la shaqeey jiray muxuu ahaa magaciisa ismaanaata markuu dhintay ya waa ku dukaday meeshii uu tagay markaas uu faanay sheekh buu ahaa muslim buu ahaa wala ninka madaxweynaha waxa lagu ogyahay dadkiisa inuu runta u sheego ismaanaata tuug buu ahaa ismaanaata waa ninka wadanka bilal qaystay hadda waa dhintay laakiin waa fact hay kan dhintay iska dhaaf mid kan nool shaydaanka shaydaanin dhacde oo la baxay sheekhin dhacde miyamti wadada ka fadhiisto intuu markay ku orda markaan ku dhashay